calanka ka kooban midabada cagaarka buluuga casaanka ee Sidaamo ayaa laga taagay dhismayaasha dawladda magaalo ku taala koonfurta Itoobiya halkaasoo gobolkaasi uu qarka u saaran yahay inuu ku dhawaaqo gooni u goosad dadka Sidaamo ayaa waxay sheegeen in iskood ay ugu dhawaaqi doonaan maamul federaal toddobaadkani dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in talaabadani ay sii holcin doonto xasaradaha siyaasadeed ee ka oogan wadanka Itoobiya oo horseedi doonto dhiig daata magaalada Hawaasa ayaa caasimad u noqon doonto dawladda la dad saaran dhugdhugleeyo ayaa yeedhinaya dhawaaqa gaadiid iyadoo rag dhalinyaro ayaa cayaan jidadka kuwaasoo lulaya calamo waxaana heesa ay u qaadayaan dhawaaqa la saadaalinayo Itoobiya ayaa hadda u qaybsan ismaamul goboleedyo waxaana dastuurku u farayaa dawladda dhexe inay u abaabusho afti qoomiyadda doonaysa inay samaysato maamul cusub Sidaamo ayaa sanado badan laga cabsi qabay inay ka baxaan deegaanka shucuubta qoomiyadaha koonfureed oo ay ku nool yihiin dadyow kala duwan oo hadda ay qayb ka yihiin waxaana doonayaan maamul u gaara riyada in la helay waqti cusub ayaa timi markii xukunka uu qabtay Abiy Ahmed sanadkii hore isagoo ballan qaaday isbedelo dawladda ayaa kaga jawaabtay codsiga inaanay awoodeynin in afti ay qabto waqtigii kama dambaysta ee la qabtayna waxa uu ku eekaa maalintii Salaasadii shalay Dukaale Lamiso oo hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa xuraynta Sidaamo ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Faransiiska in haddii dawladdu ay taageeri doonto go'aankii Salaasadii ay ku dhawaaqi doonaan ismaamul Abiy Ahmed bishii hore waxa uu sheegay sharci dejiyaasha in haddii lagu dhawaaqo go'aan hal dhinaca ay dawladdu ku khasban tahay inay samayso faragelin hay'adda caalamiga ee xasaradaha dunida ka digtay magaceeda loo soo gaabiyo ICG ayaa waxay sheegtay in dawladda federaalka Itoobiya aanay haysan ikhtiyaar ay kala doorato iyadoo haddii laga hortago in la sameeyo ismaamul ay rabshada kici doonaan waxaana iska hor iman doona sidoo kale dadka laga tirada badan yahay oo ku wada nool gobolkaasi gooni goosadka ayaa waxa uu horseeday rabshada dhexmaray qoomiyadaha Sidaamo iyo walayto sanadkii 2018 warmurtiyeed ay soo saareen habeennimadii Isniintii xisbiga dimuqraadiga dadka koonfureed ee Itoobiya oo qayb ka ah isbahaysiga dhexe wadanka maamula ayaa waxa lagu sheegay in lagu guuldareysay la cadeeyo waxa la yeelayo haddii dawladdu waxba aanay qorshaynin ka hor Salaasada dhulka loo yaqaano Sidaamo ayaa ku fadhiya 10,000 kiiloomitir waxaana qiyaas ahaan uu leeyahay badka wadanka Lubnaan tirakoob la sameeyay sanadkii 2007 ayaa waxa lagu sheegay in tirada wadanka Itoobiya ay si xawli u kobcayso iyadoo dadka ku nool gobolkaasina ay yihiin 3 milyan oo qof oo kamid ah 100 milyan ee uu ka kooban yahay wadanka oo dhani qoomiyadda Sidaamo ayaa toogu tirada badan shucuubta koonfureed ee Itoobiya ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa wajahay xaaladii siyaasadeed ee ugu xumayd ilaa intii xilka uu hayay kadib markii bishii hore la dilay rag muhiim ah oo ka mid ahaayeen taliyihii guud ee ciidamada qalabka sida iyo madaxweynihii deegaanka Axmaarada adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha